iswacyi geliyo way runtaan runta ummadda Soomaaliyeed meel walba aad joogtiin waxa idin leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed iyo baabayaashan iyo ablii Soomaaliyeed dhan cudurkan COVID-19 ayaa si tartiib u leenay ma fahantiin marka annaga intaan joogno waa iska wadanaa bahalkan gacmo way xiran yihiin afku way xiran yahay taxadar asoo cudurka xitaa magaalada ka jirna adan la taxadaraa marka isku day insha Allah way muqdisho in aad u taxadirtiin Soomaaliyeed oo dhan wax Facebook ka socdo wallahi wax loo qaadan karo ma ahan taxadara oo gacmaha iska dhaqa oo mask iska xirto hooyada kama dhibayso balkan iska saaratid marka banaan aadayso dad aad aragtina iska xiratid faa'iidun buu ku hayaa insha Allah waxa idin rajayna inaad dadaashiin hawa meel muruga taala meel murug hadda wax baratay jaamacada dhameeyay mustaqbalkii dalka ahaa ayaa COVID-19 dilay ilaahay u raxmado intii dhimatay Allah u naxariisto familkii ay ka tageen iyo asxaabtii samir imaan Allah ka siiyo perfect. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh wa idin salaam Soomaaliyeed meel baad dugaag joogteen waa aniga Ozi channelka daawanayso Ozi official soo naqshana samaanti aan video ma sha Allah maalin kale qurux badan maanta videogan waxa ugu talagalay ay tahay frinyar inaa u diro arabo reer Muqdisho Soomaali ku nool oo hadda cudurka caabuqa aad u saameynayo haddana yani hadda dad badan ugu dhimanayaan dad badan arkay qaraabada kamid ah arkay hadda cudurkaas qabo oo haddana saameynayo dad badan asxaabanahay familkooda ku dhintay cudurkaas maqlay Ilaahay uu naxariisto ku geeriyo dhamaantooda marka farintan waxay tahay waxa idinka codsanaa maaska isticmaashin wada xirtin maaskaha mid kale tan qof walba inuu is dooro nafadiisa inuu dooro familkiisa inuu ka taxadiro iyo mid kale fariin waxa u diray dad dhalinyarta oo adiga jecel banaanka inay baxaan ee wareega aadaan ee asxaabta kala kulmayaan isku day familkaaga taal nooshahay in adiga xitaalkaaga ama dhaxgalka asxaabtaada ama waxyaabo qaar in aad u controlshid sababtoo ah familka dambe hooy aaba ka weyn ay kula joogaan waxa waa dadka waaweyn cudurkaas iyo way qaadaan aad u halis yahay waxa idinka codsanaa ay tahay familka inaad ortin familkiina aadan xitad idinku yihiin haddii familkiina maanta idinka dhintaan idinka dhib barfaad ku qabo ma fahanteen marka waxa idinka codsanaa familkiina inaad ortin walaalihiin inaad u danaysin marwalba inaad isticmaalo maaskaha mid kale tan gacmaha marwalba la dhaqo la nadiifiyo gacmaha nadaafadiisa lagu dadaalo ilaa doo kurooya wax walba adiga isdheeysid kan dhiba ii keenaysa inaad ku dadaashid inaad familkaaga ama walaalahaaga ama asxaabtaada inaad ilaalisid hadda cudurka khatartan waxa jiraan dadka cudurka daaweeya isbitaalooyin waxa ku yaalo Soomaali inaad tagtiin meesha dhahdeen cudurkaana ay hayo ma ahan cudurkaan horta taqarsatid uu ku saameynaa cudurkaan waxa waaye wax aad u xanuun badan oo aad u badan waaye cudurkaan waxa lagu gartaa dhowr waxyaabooda lagu gartaa inay lugaha ku xanuunaan lafaha inay ku xanuunaan inay baga laga qabto inay dhabarka ku xanuunaan inay madaxa ku xanuun labada xis laga qabto iyo maskaxda gadaal iyo ina dhunta infection aan wax ku hayno aad reentid waxyaabo saas lagu dareemaa marka insha Allah video kalena waa haya oo asana ka hadlaayo cudurka waa kaas videogan ila daawada fariinta wacyigelinta ka hortagga coronavirus waxa iska kaashada liicaato iyo kaamil show la wadaaga asxaabta kale waana sida tan kaftan ma gala COVID-19 ka hortag mooyaa la yidhi kaduusha sahal buu ahaa corona ka daran baa la yidhi wuu kadeeday aadmigu wuu soo laba kacleeyaa la yidhi tira koobka wadarta dhimashada tobanlaab kor bay u dhaaftaa la yidhi kanoo kale weli maynaan arag saqiir iyo kabiir casaan buu siinayaa la yidhi kulla yoom wacyigelin joogta ah dhaqaatiirtu noo keentaa bulshada kaalinteedaa maqan baa la yidhi iskuulka ku kalahabaan siri la kaalay afsaab baa la yidhi galaaska ku qufac baan siri suxulka ku dabool afkaa la yidhi asxaabta kaliya laab salaam baan siri kor baad ka salaamantahaa la yidhi kaltuun lahaasow baan siri kaabba gurigaaga joog bay tidhi kafool la kulan baan siri 2 mitir kala fogaadaa la yidhi ka kaaftuun farxal baan siri kor u qaad nadaafadaa la yidhi noloshu way kooban tahay ha isku oqoosan kamistaadaa la yidhi lacalla hadduu kugu dhaco saaris naftaada karantiil baa la yidhi wixii kaalmo dheeraad ah la kalaam gurmadka degdegaa la yidhi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا وأهنا سركين حاشي نوره يلي بان هذا علي waxaan ugu baaqaynaa bulshadana Soomaaliyeed oo aan uga digaynaa maadaama uu soo laba kaclay waliba si aad cudurka COVID-19 ka waxaan leeyahay badbaadi aabaha sidoo kale badbaadi walaalka iyo waalidka
badbaadi hooyada iyo ayida. cudurka covid-19 waa halis waxaana laga keenaa inta ugu badan banaanka. Please waa idin baryaa bahalkan waa uu fudud yahay inaad mar walba aad weyd afka aad ku xiratid. waa muhiim inaad maaskaaga xiratid farahana aad dhaqatid. aad iyo aad insha Allah ummadda Soomaaliyeed waxay ugu digayaan inay iska ilaaliyaan meelaha publica ay tagayaan. dawladdeena waxa ugu baaqeynaa inay aad u xakameeyaan bulshada Soomaaliyeed. oo aniga iyo Nasrakiin Xaashi Nuur oo idin leh covid-19 Allah naga badbaadiyo. amiin. iswacyi geliyo way runtaan runta ummadda Soomaaliyeed meel walba aad joogtiin waxaan idin leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed iyo baabayaashan iyo ablihii Soomaaliyeed dhan cudurkan covid-19 ayaa si tartiib u leenayo ma fahantiin marka annaga intaan joogno waa iska wadanaa bahalkan gacmaha way xiran yihiin afku waa xiran yahay taxadar asoo cudurka xitaa magaalada ka jirna aad la taxadaraa marka isku day insha Allah way Muqdisho in aad u taxadirtiin Soomaaliyeed oo dhan waxa Facebook ka socdo wallahi wax loo qaadan karo ma ahan taxadara oo gacmaha iska dhaqa oo maask iska xirto hooyada kama dhibayso balkan iska saaratid marka banaan aadayso dad aad aragtina iska xiratid faa'iidun buu ku hayaa insha Allah waxay diri jireen inaad dadaashiin hawa meel muruga taala meel murug dhalo hadda wax baratay jaamacada dhameeyay mustaqbalkii dalka ahaa ayaaba covid-19 diray ilaahay u raxmad intii dhimatay Allah u naxariisto familkii ay ka tageen iyo asxaabtii samir ma Allah ka siiyo Soomaaliyeed waxay idin ka codsanaysaa inaad is ilaalisiin cudurka iska ilaalisiin familkiina dhortiin dadka waaweyn inaad dhortiin iska dheereysiin يعني فاميلك مكوض عن فاميلك على قد حبوا لكن يعني فاميلك والسك إلاليا سبتة عذر كانت هذا سامين ما بدنا نريد منو لباتن قف كنت قف بقول قف دراسة وجد نيش كأركاي مركب حياتك عشنا فاميلك إن دورتين وحياة بس إنك إلاليسين إن شاء الله أنت سابلنتين نوع وحياة بدنا إن شاء الله وإن سكوت الدنيا دو إلهي رادو إن شاء الله مرة ربنا فاميلكينا حلا إلالي حلا دورو مرة والبو والدين كده لا والدين وحبين واي يعني هدي ما تديك حنوس أديك عرفات اللي بخبو marka waalidiintii lagu dadaalo Soomaaliya oo kan xaaladu isku konteksto inkastoo sida yani ahayn wadan oo aad u horumarsan laakiin inkastoo oo hadana si caadi ay tahay laakiin waxa ay codsanaynaa mar walba aad dadaashiin familkiina ku dadaashiin familkiina inaa cudurka ka ilaalisiin hadii adiga maanta asxaabtada banaanka ala horeysan jirtay ama wax la qaadan jirtay waqti ama waxyaabo qaar inaa iska ilaalisiin marka insha Allah idinkan ku dadaalo familkiina xal ilaaliyo familka wax walba familka ka weyn maaska hal isticmaalo aniga hadda wallahi bay mashiiga ودير أجوهن أمير أنت أتجين ماسك استعمالنا وحاستعمال هذا أب كلا هايو أو مقدم كأودكسين هايو كلات ميلو بتجيس دو كلا أو شيء تليفون كاغا شيء هايو يعني عذر يعني وحكوا هاي وحياة خاب بدنا جيران مرك إن شاء الله وحياتكم عسنا هاي إن مروا بس كده داشين مروا بس إلالسين إن كل هذا مرة فيديو إن شاء الله تفسو قبوينا هذا اللي هاي بلنتين وإن ماسك آخرنا فملكنا أدورنا إن شاء الله ساسيو نود كليو